khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira dalka dibadiisa Garaad Daawud Cashuur Warsame oo kamid ah isbada dhaqanka maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya garaadka oo la soo xiray warbaahinta qeybaheeda kala duwan isla markaana ka hadlaya shaqooyinkii ka dhacay deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool garaadka oo ah garaadka beesha Faqashini Garaad Daawud Cashuur Warsame garaad soo dhow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والسلام يا بعض الصحافة. وسو قليل ما أنت إن تعسيدرو وايو كما تضيدي يرجيبا سوى ذكر الله حسوق. من قصدي أوي معربين عنده قطب أنا هلكن كتابت. قطب وحان لي هاي maamulka Waqooyi Bari qodobna waxaan leeyahay dhulbaxante qodobna waxaan kula hadlayaa Faqashini marka hore waxaan baaq u dirayaa dhalinyarada Faqashini nool wixii dhintay inta nool waxaan ka codsanayaa inayan tallaabo dambe qaadin inta la isaga imaanayo inay wax tallaabo qaadin baan ka codsanayaa meelay joogaan inay isxakameeyaan ka warsugaan odayaashoodii iyo waxgaradkoodii baaqaasaan dhalinyarada u diraya qodobka labaad oo aan rabo inaan kaga hadlo Waqooyi Bari saddex wada u furna oo soo geli jiray waxay wadada Soomaaliland oo xiranta wadana waa Puntland oo xiranta oo siyaasadda Puntland way naga xiranta halka wadada oo furna wuxuu ahaa hawiye iyo dowladda federaalka rag wax ma garata oo siyaasiyiin sheeganaya oo aan aqli badan lahayn waxay ugu talagaleen inay tiina soo xidhaan arrintan dhacday suuqa beesha Faqashini loo geystay waa arrin loogu talagalay in lagu majaxaabiyo maamulka ayada curdinka ah ee Waqooyi Bari in lagu afgembiyo waxaa loo xasuuqay beesha Faqashini in hawiye kaco hawiye iyo dhulbaxante lagu kala reebo colaad si ay hawiye markay xanaaqaan iyaguna ay wadadii kaliya furnayd ay u goostaan taas waxaa ka shaqeeyay rag waaweyn maamulo iyo dowladba intaba way ka shaqeeyeen iyo dowladda waaweynba waxaa lagu talagalay in la kala gooyo hawiye iyo dhulbaxante waxaa la yidhi u kala goyn karnaa waxaynu u kala goyn karnaa inaynu dhulbaxante ay Faqashini xasuuqaan kabacdina halkaa cadho ka dhalato wadadaasina ay sidaa ku xidhanto siyaasiyiinta dhulbaxante iyo maamulka Waqooyi Bariba horta inay sidaa u fahmaan weeye waxa la laayay ee lagu soo duulay inuusan Faqashini ahayn maamulka Waqooyi Bari inuu yahay waxa lagu soo duulay oo rabo in xididada loo siibo in la meel walba laga xidho in la go'doomiyo waxaana qabaa waxa dhibaatada hormuudka ka ah maamulada deriska iyo dowladaha shisheeyaba soo adeegsaday waa siyaasiyiin wax ma garata oo ka soo jeeda Waqooyi Bari waxaan rabaa inaan hadalkayga ku qotomiyo waxaa laga rabaa madaxweyne Firdhiye iyo inta daacadda u ah maamulka Waqooyi Bari saraakiishii dhibka geystay ee dhiilka soo qaatay xasuuqa arxandarrada geystay in horta la soo qabto oo xabsiga lagu guro si ay xasuuq kale u geysan oo ay mar kale ay isugu dayin inay afgambiyaan maamulka Waqooyi Bari baaq dheer baan u dirayaa xukuumadda iyo waxgaradka reer Waqooyi Bari hadday rabaan jiritaankooda hadday ka fikirayaan oo ay rabaan inay sii jiraan oo maamul sii noqdaan nimanka afgambiga geystay lagu soo shubtay وين la soo qabtaa وين la xirxiraa وين xaq waxay u leeyihiin la mariyaa dad masaakiina oo wax aan hubaysnayn oo deegaankoodii magaaladoodii jooga bay xasuuqeen
maamulkii waqooyi bari bay afgembiyeen marka hawshaasi yaan la dhayalsanin waa hawl weyn oo qoto dheer oo la rabo in ridda keliya u furan dadka deegaankaasi maamulkaas in laga soo xidho war hooy war dheer baan ku leeyahay war waa duulaan war waa arrin aad iyo aad u qoto dheer war waxaan qabaa in hawshaas laga hortago dadka la adeegsadayna lasoo qaqabto maamulku waa inuu tallaabo qaado arrintaa waa inuu maamulku tallaabo ka qaado fiqishin iyo annagu ma qabno in fiqishin iyo jaacasyaal isdileen waxaana lagu laayey ee nalagu soo weeraray ee dadka lagu laayey waa hubkii iyo ciidankii waqooyi bari waa maamulka ciidankiisi waxaa la adeegsaday ee loogu talagalay in lagu majaxaabiyo maamulka waa ciidankii waqooyi bari waa saraakiishii waqooyi bari ugu waaweynaa waxaan qabaa arrintaasi yaan la dhayalsanin yaan haddii sidaa lagu sii eegto taa iyo wax ka sii xun baa ka dhici doona arrintani waa arrin aad looga soo shaqeeyey loogu talagalay in hawiye iyo dhulbahante la colaysiiyo dabka laysugu dhiibo intaasu waa qodobka labaad ee waqooyi bari aan kaga hadlayo walaalahay hawiye habargidir cayr waxaan leeyahay horta aad baad u mahadsantihiin gubaabada iyo hiilka weligiinba waad nala garab taagnaydeen waannu idinka mahad celinaynaa laakiin hawshaas waxaan rabnaa inaad nagu sintaan oo nala sugtaan oo waxgaradkayaga aad la sugtaan qodobkaasna waxaan leeyahay beesha hawiye baan leeyahay qodobka ugu dambeeya aan sheegaya waxa weeye laynta fiqishini la laayey fiqishini baa qayb ka ah suldaankaa kow ka ah ganacsatada laba ka ah iyagaa dadka gacmaha u xidhxidhay oo hubkoodii iyo dhaqaalahoodiiba baaba'saday oo meel dhigtay iyagaa u oggolaan waayey inay sida dadka u nool yihiin ay u noolaadaan iyagaa lacagtii dadka ehelka ay yihiin ugu deeqay iyo wixii ay ugu talagaleen inay ku noolaadaan iyagaa ganacsi ku furtay iyagaa meel shila rabay inay gobonnimo ku raadiyaan iyagaa gurnimo ku raadiyey marka waxaan leeyahay ganacsatada qandaraaska raadinaysa iyo suldaankooda aan caqli kala lahayn caqligoodu yahay lacag waxaan leeyahay dadkaa idinkaa gumeeyey dadkaa idinkaa gacmaha ka xidhay dadkaa idinkaa xasuuqay intay goorgoor tahayna haddayan iska kiin qaban oo ay wixii hore aad ku sii wadaan dee meel xunbaa waxa weeye beeshan laga raadinaya beeshani waa beel weligeedba deganeed bay ahayd meesha waxaan iyo wax u dhowtoonnaa lamayan kulmi jirin gurnimo ma qaadan jirin laakiin waxa gacmaha ka xidhay ee cadowga u loogay waa dadkii la rabay inay ka dhidhiyaan waa qurba joogtooda waa ganacsatadooda waa suldaankooda ayaa baaba'saday beeshan waxaan baaq dheer ku dirayaa kuwaa sidaa reerka u baaba'saday walaalahay hawiyow kawaantooba waxba ha noogu dhiibina haddaad waxna siinaysaan oo noo soo gurmanaysaan guddi idinka aad samayseen wax noogu dhiibo adh caddeeye ha noo geeye waxaad noogu dhiibtaan wixii horena nama soo gaadhin haddana waxaad noogu dhibtaa sidii horunbay u maamulayaan waxaanu cod dheer ku dirannaa inaad waxa aadna siinaysaan adh caddeeye geysaan oo dadkaa dheer adh caddeeye dhibaataysanaad la gaadhaan aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin